xaflad ballaaran oo lagu maamuusay furitaanka hoteelka cusub ee Nuro International Luxury Accommodation and Restaurant ayaa lagu qabtay gudaha hoteelkaasi taasoo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaalida ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika sida siyaasiyiin, abwaano, ganacsato, culimo u diin iyo marti sharaf kala badan kuwaasoo casho sharaf la isku arko lagu sameeyay. xafladani waxaa ka hadlay milkiilaha hoteelkani cusub Cabdinaasir Goley iyo injineerkii dhisay dhismaha iyo marti sharaf kale kadibna waxaa meesha lagu fara saaray cunto si heer sare ah loo soo diyaariyay. sidoo kale ganacsade Xaaji Muuse Ganjab oo kamid ah maalgashiyaasha ugu waaweyn ee Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa isna waxa hadaladiisa kamid ahaa hadda ganacsigeenu waxa uu u gudbay heer dadka ladan ee dabaqada sare ah. tanina waa talaabo cusub oo aan filayo in lagu dayan doono hoteelkan cusub. waa hoteelkii ugu horeeyay oo noociisa kala ay Soomaalida dalkani Koonfur Afrika ku furitaanka hoteelkan cusub ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii ballaaranayso xaafadda Mayfair oo xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika isla markaana ay ku badanayaan hoteelada waaweyn oo ka mid noqon doona midkan haatan laga furay bartamaha xaafadda Mayfair ee magaalada Johannesburg. hoteelkan lagu magacaabo Nuro International Luxury Accommodation and Restaurant waxa uu leeyahay oo ku dhan sida aan ku soo arkay dhammaan adeegyada ay leeyihiin hoteelada caalamiga ah sida television, telephone, internet, qol waliba ku jira iyo adeega qolalka. qolalkiisu waxa uu ka kooban yihiin qolal keli ah iyo qolal waaweyn oo laba qof loogu talagalay, qolalka xaasaska iyo kuwa madaxda dadka VIP-da ah loogu talagalay, iyadoo ay intaasi dheer tahay waardiye 24 saac waxa sidoo kale ku xiran wax ilaaliya. waxaa kaloo ka mid ah adeegyada hoteelka uu siinayo martida iyo macaamiishiisa gaadiid joogto ah oo isku xira hoteelka iyo garoonka diyaaradaha, gaarigaasoo kaasoo qaadi doono garoonka diyaaradaha kuna keeni doono hoteelka. sidoo kale waxaa macaamiisha loo diyaariyay isku xirka diyaaradaha. Nuro International waxaa kaloo uu leeyahay howlka lagu qabto shirarka iyo xafladaha. waa hoteelkii ugu horeeyay oo noociisa kala ay Soomaali iska leedahay laga furo dalkani Koonfur Afrika. gabagabadii xafladan ayaa milkiilaha Nuro International Luxury Accommodation and Restaurant Cabdinaasir Goley waxa uu mahadceliyay dhammaan marti sharaftii ka soo qayb gashay. muddo yar ayaan joogay Johannesburg, dhammaan dadkii magaalada qaybahoodii kala duwan hal habeen ayay ii soo gashay inaan ku barto, waanan ku faraxsanahay taasi ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisii. Cabdinaasir Soomane, Universal TV, Johannesburg.